والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد. شركة شرايد ما أنتم حنو قبنا يا إن دور قلب كجاه الله ويكوك التهاي وزيرك والفافنتها جمهورية الصومال لاند جروب الواقع ويعملوا مال ضرات كدواتشي الرماي كمديهين أي كمديهين الرماي كمديهين دورشوينك كلو أي كمديهين نكى قال كهاي لورنشري مايكل والس الدوان الكيمي أرتوح أنا لها وزيرك شغله ذو حوي قرن كنا نتكدف في عدو وحلالي يحب بروباغندا لا الدلك اللي هيو إيوين الشعب كسومالي لان wax ka farxiyo u sheegto labada midna uma sheegin mudane wasiir waxaynu ognahay dagaal dhinaca saxaafadda inuu dhex maray Puntland oo muddooyinkii dambe uu ka tagnaa propaganda been oo farabadan qarankan iyo shacabkan ka fidinayay waxay ahayd shaqadaadu inaad dalka ka difaacdo propagandooyinka caynkaas dagaal baa wada gasheen adiga iyo ninka la yiraahdo Quran Jecel oo afayeenka madaxtooyada Puntland dagaalka waxaanu aaminsanahay ama anigu aan aaminsanahay inuu laba gool iyo eber kaaga badiyay halka waxa ka muuqata inaad qarankan ka difaaci karin dhibaatada dibadda kaga timaada gaar ahaan saxaafadda ama qolaha noqoto ama afan noqoto xisbiyada qaranku ay wadani kowkay kaagama baahna adiga talo waxaan ku oran lahaa shaqadii qarankan aad u haysay waad baylisay taasi waa caynka midda labaad in doonayay inaan ka hadlo waxa weeye waa doorashadii maanta waxa ka halay 5 bilood ama wax ka yarba 2019 ayaa shacbiga Soomaaliland u ballansan yihiin in la galo doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka kuwaasina waxay u muuqdaan inaanay waqtigoodii ku dhacayn inta xisbiga wadani iyo asxaabta kale la ficiltamayeen ayaa sababtay ama ay u muuqataaba inay dib u dhacayaan doorashooyinkii oo dhan marka doorasho laga hadlayna mas'uuliyadda waxa leh xukuumadda madaxweynaha leh adna kama hadashid madaxweynuhu kama hadlo ilaa maanta road mapka iyo qorshihii loo dejin lahaa in dalkan doorasho ka dhacdo waxaana wali jira caqabada ay idinku mas'uuliyaddeeda leedihiin oo wali dalka u muuqda wali lagama heshin saamin qaybsigii wali xal looma helin nimankan commissionka ah ee ku fashilmay inay doorasho xor oo xalaal ah 2018 dalka qabtaan ee xisbiga wadani diidan yahay commissionkaas wali wal hadal kama idin gelin wali xisbiga wadani iyo xisbi asxaabta kale midna ugu meediyo yeedhino maydo wal maxaynu yeelaa dalka sidaynu ugu diyaarinaa doorashada anagu mas'uul kama nihin xukuumadda ka mas'uula taasina waxay u muuqataa maanta inaanay dhacayn oo ay u baahan tihiin in aad dib loo kordhiyo dalkana taasi Soomaaliland maanta kuma iinin karo in mar dambe la kordhiyo guurtida waa muddo dhaaf 20 sanadood bay fadhiyaan baarlamaanka 15 sanadood buu fadhiyaa goli deegaanka 15 sanadood bay fadhiyaan qarankan waxa maanta loogu doortay madaxweyne Muuse Biixi in dhibaatooyinka caynkaas oo kala ah oo ka hadlo xalna uu helo mashaakilka maanta taagan laakiin waxaad moodaa xukuumaddii inay shacabkiiba iyadu leedahay xalka raadiya shacabka Soomaaliland diyaar buu u yahay inuu doorasho galo laakiin waxa la idinka rabaa caqabadaha hor taagan ee kow ka tihiin idinku deena meesha ka qaadaan qodobka saddexaad ka hadlaya waxa weeye ninkii la oran jiray Michael Walls ee dhawaan dalka yimi ninkaasi malaa berberiya Hargeysa kala garan waayo wuxuu rabay inuu ku soo dabaasho berbera laakiin nasiib darro Hargeysa dharkiis kaga saaray xisbiga wadani touch buu ku haya if weyn qashaafad weyn baan ninka ku hayna qashaafadana ka dul qaadimina waa ku haynayna guri barwaaqo iyo cid kale ma difaaci karto waana ku haynayna ilaa iyo inta libta u geystay ay banaanka u soo baxayso qashaafada waa ku haynayna. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.